waxaan ka sheekaynayaa waxbarashada caqabadaha jira hablaha caqabadaha ka haysta waxbarashada waayadii horena ka haysan jiray iminkana way jiraan marka la eego caqabadaha in laga saaraa loo baahan yahay waxbarashada oo hablaha fursadooda waxbarasho la siiyo inan hibo la yidhaahdaan idinka sheekaynaya sheeko la yidhaaho cabiidso oo cadaadi baan islahaaye ma cilmi bar baan islahaa islaa ku qoomamaysay bal haddee inan yar baa jirtay oo habboon baa la odhan jiray aabeed xuseen baa la odhan jiray xuseen laba ooriyood buu lahaa habboon hooyadeed way dhimatay ilaahay naxariistii janna ka waraabiye ooridii kale uu keenay oorida kale inan bay dhashay inanta ilwaad bay ula baxday aad bay u jeceshahay labada hablood waa isleeyihiin iyo ilwaad iyo habboon dabadeedna ilwaad waxba uma dirto habboon be cabiidso istiraada dabadeedna shaqo walba way u dirtaa wax kasta waa reermii wax waraqato dabadeedna sida haanta loo sameeyo sida maxayga meelaxda loo soo diro sida hararka loo sameeyo shaqo kasta sida reerka loo dhaqo sida caruurta loo xanaaneeyo wax kasta waxay bartaa habboon qaba waxaas iyadoo ugu daraysa tontooma iyo ugu daraysa ilwaadna halkaa iska daaway tiraahdaa iska fiirso isma oga inay cilmi baraysa cabiidso oo cadaadi bay isleedahay inantaaduna ha raaxaysato labadii hablood baa gashaantiya noqday dabadeedna ilaahay alafkoodii buu keenayo habboon baa la horguursaday habboon baa reerkay gashay ku badhaadhay saashaqo kasta saasay u taqaanaa wax kasta alaabtii bay samaynaysaa qab soomaaligii bal haddee eeg xoolii bay raacaysaa xanaanaynaysaa kala taqaanaa soo hoynaysa soo dabaalaysa carruurtii xanaanaynaysa waa lagu badhaaray markaasaa reerkii oo dhan berigii horena waxaa loo degi jiray dee dhowrkii qoysba muxuu ahaayey aag ayay xidhan jireen markaasaa deyr baaba lagu soo wareejin jiray dholalka iminka mooyi dee jeesjeeskan iyo reer iska guuraya markii hore waa iska yaraa noloshan dambe ee colaadaha badan baad ka keentay dabadeedna waa lagu badhaaray tii kalea la guursaday war maxaa qabsaday toddobaadkii u horreeyeyba reerkii gacantu ka taagay war maxay ahayd tani dabgeli kari mayso cunto kari mayso xoolihii ma kala taqaano haddii loo diray magacyadoodii iyo maxaygoodii tiradoodii markay soo hoynayso kala garan mayso bar baa maqan gebigoodiiba malaa 3 meeloodo meel bay wadaa warna uma hayso waa la yaabayoo maalintii dambaa la yidhi war bal waxaraha loo diro waxarii baa loo dirayoo barqadii diga halkan oo la gubay bay waxarii intay sidaa u yaaceen ku soo noqdeen mise 6 waxaroodoo yaryaroo xooluhoo aad u dhalay dhammaan digadii bay dhex galeen oo lugii bay ka wada huruushoodeen saasay isugu soo kagay tii baa la arkay mise bismillaahi reerkiiba wixii uu waxaara kori lahaa da'dan dhashay deyrtan dhashay halkaasay ku baabeen dabeedna waxaa la yidhi waxba ha u dirina aakhirkii waxay noqotay inantii in reerkeedii lagu soo celiyo jidhkeedii dee baali basari areebo maryihii loo geliyey haantay lushay caanihii subagii wixiiba maradeedii buu ku daatay hagaajin male wareer waxaa la yidhi tan inta la kaxeeyo gurigii ha la dulgeeyo wakaa reerkiinii oradoo dhigaraan dabadeedna waa loo keenay hooyadeed markay aragtay tii kalena warkiisoo haysaa tan loo keenay ayay murara dilacday haweenkii baa soo booqday dariska markaasaa la yidhi nayaahe inantii habboon waxay ku dambaysay soo ma ogid haa waxaasoo cilmiga adaa baraya maxaa tan u hagratay markaasay tidhi allah cabiidsaan islahaa oo cadaadiye ma cilmi bar baan islahaa waxaan uga dan leenahay waa hablaha waxbarashada ha lala ogaado waxaan goobjoog u ahaa inan yaroo waxbarashada dee waa tanoo wiilashaa la jecel yahay in la aado in wax la baro 3 wiil iyo 2 gabdhood buu dhalay dabadeedna 3dii wiil buu waxbarasho u diray 2dii gabdhood mid baa yar midna way runta waxbarashadu waa mid dood meelan oo hadal meelan karti badan oo dee firfircoon oo inay maskaxina soo wado wanaagsan ku jirto way iska muuqataa sida najmo iyo hibo iyo aynu arkaynay in aqli badan ku duugan yahay waayahay way la dooday aabaheed waalidkeed bay la dooday waxay tidhi
nafara dambiga dhunta loogu habaa marka ay hirqataa dhibti ay ka hadhaa hadduu ooma garaadku hadduu ooma garaadku haraduu ka cabaa hilinkee u maraa baladee hablaha iyo wiilasha hor alle ma sintaano gabdhaha waad hagrataan hayinbaad ka dhigtaan heeca iska rartaaye hiba weeye aqoontii halligeeyey iskuulkeedii baladee iyadii baa doodaysa afkeedii bay ku doodaysa waayeelkiina hagaaye kol hadduu hiiwaaliyo uu hawaawi ku jeedo waa yacnaa qaad iyo fadhi ku dirir iyo waxyaabaha ku maqan yahay waayeelkiina hagaaye kol hadduu hiiwaaliyo uu hawaawi ku jeedo inta aan halladaadka dhashu aanay habaabin gaar ahaan hablihii rajadoodu xumaan hilaaca biliglaa hiyigaygu jiraayo hobashaa curataan halka ay ku da'ayso haqabeel ku hubaaye hiba weeye aqoontii hallaygeeya bay tiri tacliinta aakhirkii inantaa waxbarashadii waalidkii markay iyadaa garnaqsanaysee waa la geeyey waxbarashadii saasay ku heshay nasiibkeeda kuwa aan doodayn baa jira marka hadday rajo tahay hadday aqoon tahay hadday tahay iminkana markii la barakacay waxaa la ogaaday hablaha iyo wiilasha ninkii inan waxbaray dee guulaysay ama inani meel u tagtay ee u dhooftay ee wax u soo kii shan lahaa sidii shantii muxuu ahaaye laba ninoo reer miyaba midna shan wiil dhalay midna hal gabadh dhalay dabadeedna halka gabadh nairobi baa lagu qabaa kana shantiisa wiilba nairobi bay jiraan dabadeedna waa israacay waa berigii hore xaggaa loo muxuu ahaaye loo la aadi jiray nairobi iyo isla iyo markay asaasmaysay dabadeedna dhexda intii la marayay kii shanta wiil dhalay yidhaahda waa adiga maxaa kuwada aad u socotaa dee gabadh baa halkaa iga jooga gabadh baad intaasoo wadaa u soo martay maad iska joogtay aadoo joogaa lagu qaatay kan way iska aamusay ila shan aniga shan bay iga horeeya oo shan wiil jaamac baa ku jira oo nina daran oo sugaal nin la yidhaahdo haye kani waa iska aamusa nairobi baa la tegayoo masaajid bay ku degeenoo kii gabadha dhalay baa markiiba muxuu ahay gabadhii iyo ninkeediioo gaadhi wataa yimi meeyey aabbahay waa kanoo markaasuu sidaa ugu soo booday ninkii gabadha inantiisa qabay markaasaa gaadhi lagu qaatay xufkii kale lamama dareemin markaasuu sidaasuu weegaya shimcihii dambaa la gaadho kiioo xaragoonayo dhar loo soo iibiyo shoobinku aad yaabayso saa xashaashaya oo muxuu ahaaye la socdo ninkii inantiisa qabay oo la socdo ayay soo galeen masaajidkii kiioo gidaarkii masaajidka saa u jiifo isku duuba ayuu yiri waaryaa maxaa meesha ku dhigay maye shantii wiil markaasuu yiri warniyow shan lahayne mituuga oo ugu yar kaasaa laba casho markuu iga maarada mar waxii keeno isna dib uma arko wixii kalena adaabay sheegay markaasuu yiri ma shantii wiilba